inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay shirkan haddaan ku soo noqdo muhiimadiisu waxa weeyaan maanta uu bilaabmay shirkan waa shirin badan la sugayay ilaahay wuxuu qoray inay maanta dhacdo shirkuna wuxuu ka hadlayaa amba tilmaamayaa sidii dhaxgal loo sameyn lahaa dhaqaale amba baac-mushreed iyo isdhex socod dadka wadaaga amba ku bahoobay igad waxaa isna warbaahinta faahfaahin ka siiyey muhiimadda uu shirkani leeyahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Gabayre bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan ka tacsiyeenaynaa geeridii ku timid walaalkeen ra'iisul baarlamaanka dalka Djibouti Allah u naxariisto dhammaantiin oo ka wada tacsiyeenaa anoo ka hadlay codka magaca ganacsatada Soomaaliyeed iyo Soomaaliyaba marka labaad waxaan ka soo qayb galnay igad business forum oo 2015 ka dhacaya Djibouti oo labadii sanaba mar la qabto barnaamijkaas oo barnaamij aad u qurux badan oo aan rajaynayno in qolo walba ay ganacsatadeenan isugu imaan doonto igad ka wada socota dhammaantood ay qolo walba ku soo bandhigi doonto habka horumarinta businesskooda waa barnaamijkaasaan u nimid waxaan rajaynaynaa inaan guul fiican kala kulano Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV وهاجد داوديال guud ahaan warkii oo xilligan kala socoteen TV-ga Universal ayaa inta ku dhan